waxaan haddana u yeeraynaa cabdinuur sheekh nuur ayaan ka rabnaa halkan inuu yimaado kadibna waxaa ku xigay gabdhaha insha Allah waxaan ila xasuusinaynaa wasiirkan inuu fadhiyo spiritka oo energy-ga qolkana aad u fiican yahay wasiirkana hadda waa maanta jaalintiisu dhageysanaya Toronto. بسم الله الرحمن الرحيم هذا البدن هل كان يجمع فرنا مركو غوري سوان سود وين ديبتي برايم مينستر كا هل دبعنا ذا أحمد على حرات مروده وزير كهرباء الدبدة لكي صاحب بدن هل كان فردية وبانا فردية ماشي سه وأنا وين يهين هو جامياشي كوميونتي جا أما تشاليه ده كندا غارهان نورد تورونتو marka dhamaantii waan soo dhaweynayaa mar labaadka waxaan soo dhaweynayaa dhamaantiin intiina halka kan fadhida waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa waxaan sheeganayaa in yar waan soo gaabinayaa ninka la yiraahdo Naasir Cali Baalle wuxuu hadaaya ka hadlay guulihii gudigiisa ama groupkiisa waxaan sheeganayaa guulahayga hal arrin oo kamid ah waxa weeye guulahaas aan gaaray waxaan oran karaa kulankii ugu dambeeyay oo wasiirkii inoogu dambeeyay halka inoo yimid waxaan acknowledge garay oo sheegay azhar markuu inoo yimid waxaan halkan ka qiray oo sheegay wax qabadka gudigaas Naasir Cali Baalle madaxda uu yahay halkan xalayna waan mention garay oo waan sheegay arintaas waxay dhiirigelisay si dhiiran inay halkan maanta uga sheegtaan marka waa guul aan sheegan karo runtiina waan ku faraxsanahay wax qabadka ay qabteen mar hore iyo mar dambaba iyo tay si maagan yihiinba waxa kale oo inta ku darayaa anigu waxaan kamid ahaa dadkii la socday iyaga markay soo dhaweynayeen madaxweynaha iyo wasiirka shidaalka iyo tamarta أنا ديبتي برايم مينستر كان waxaan idin sheegayaa inta aan la wareegayay wasiirka ama shirki madaxweynaha meel uu ku qabtay ka qayb galay waxaan ka qayb galay shirar kala duwan oo isugu jiray kuwa dadka Soomaaliyeed oo dhan loo qabtay iyo kuwa dad gaar ah loo qabtay beelo loo qabtay inta waxaan idin sheegayaa inaan mid ku leenahay kuna qurux badannahay kuna fiicannahay markaan dhannahay oo wada jirno shirka guudina ku qurux badan oo ku fiican wasiirka waxaan leeyahay hadda jaal wasiir intaad mareysay waad aragtay dadka Soomaaliyeed qurbaha ku jooga muuqaalka mugalay ku soo baxayeen waxay ku muujinayaan rabitaanka ay u qabaan qaran Soomaaliyeed ee lugihiisa ku istaagan waxay aad u jeclaan lahaayeen inay adunkuna ama dawladdu guud ahaan bashirarkii horena waanu ka niri wax qabad muuqda iyo dadaal iyo daacadnimo muuqata haddii xataa awoodiinu yar tahay ay xaqiina ka muuqato si aad u kasbataan kalsoonida dadka waxaan kaloo aad u xusaynaa qodob yar oo hadiiba ku taabanayo oo ah inaad tixgelisaan waan ognahay awoodiinu maanta say tahay goboladu say yihiin dalkiisa guud ahaan xaaladda ka jirta awood iyo fursad badan oo ma heshaan inaad tagtaan gobolada iyo degmooyinka kormeerka lagu sameyn jiray waxaad moodaa inay idinkaga sahlan tahay inaad timaadaan banaanka u soo baxdaan waxaan ognahay dadkii qaamaysanayaasha ah oo xogaaga yaraa resource-ga dalku lahaan jiray wax lagu baray inay banaanada wada baxeen inaad arintaas aad u tixgelisaan banaanada loo soo baxo dadka Soomaaliyeed oo qurba joogta ah si fiican aad uga hawlgashaan wax weyn ayay kordhin karaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalayaal idinku raali ah waqtigii oo aad iyo aad xiriir noogu ah